بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa radio USB oo alaaba kala socotaan barta internetka. studio radio USB caawa waxa marti nooga aqoonyahan ka socda deegaanka SSC maamulka Khaatumo Kinsi Maxamuud Mire Kinsi Sanqole Kinsi soo dhow. waa dhawahay Kinsi waxaan wax ka rabnaa inaan ka weydiino dhowr arrimood oo ku soo kordhay deegaanka Khaatumo State muddo laga joogo dhowr bari. arrintaas oo safarkii uu madaxweynuhu kaga yimi caasimadda Soomaaliya iskuna soo arkeen madaxda ugu sarreeyay dawladda federaalka iyo isaga oo hogaaminaya wafdi ballaaran oo Khaatumo State ka tirsan oo ka soo degay garoonka magaalada Bohoodle isla markaana safarkiisii u sii watay dhanka ay caasimadda Khaatumo State ee Taleex yididilada aad ka qabteen iyo aydan gashay ahmiyadda intee leeg ayaad rajaynaysaan iyo horumarka ballaaran ee ka muuqda deegaanka Khaatumo State ay ka hirgelisay muddadii koomeed ay jirtay hadday noqoto garoomo biyo gelin laamiyo iyo xagga waxbarashadaba ma nooga sheegi kartaa arrimahaas? بسم الله الرحمن الرحيم عبدي وسؤاشادي ويديسي aad baad ugu mahadsan tahay runtii deegaanada Khaatumo waxaa ka socda abaabul ballaaran hadday tahay xagga horumarka hadday tahay xagga wacyigelinta hadday tahay xagga amniga ama security-ga wax la yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan halkan hambalyo diiran oo kalgacaltooyada uga diraya madaxda Khaatumo uu ugu horeeyo madaxweynaha Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo aan u arko geesi doonayo dadkiisa carqalad badan oo hor yaala cid kastaba hor dhigtay inuu kala boodo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu u fududeeyo annagana waxaanu la garab taaganahay wax kasta oo awoodayada ilaahay baa awood leh marka aan u soo noqdo oo ka bilaabo safarkiisii uu xamar ku yimi ee dawladda federaalka ku casantay Muqdisho madaxweynuhu nin kasta oo madaxa ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ha ku xigo prime ministerka Cabdiwali Sheekh ha ku xigo ra'iisul baarlamaanka Dr. Jawari iyo madaxda generaalka booliiska General Saacid iyo madax badan oo wasiiro leh dad kale oo ajnabi oo foreigners oo ay ka mid tahay safaaradaha Ingiriiska Itoobiya Soomaaliya hay-ado dad shacab ah oo magac ku leh shacbiga Soomaaliyeed dhexdiisa oo ganacsato ka mid tahay oo isma ka mid yihiin cid walibana inay si diiran oo qurux badan dadka Khaatumo ka socday madaxweynaha Khaatumo ay ugu soo dhaweeyeen Muqdisho qofka waxa lagu ixtiraamaa ama lagu qiimeeyaa waxa uu qabto ummadda uu mas'uulka ka yahay qofka mas'uuliyadiisa waxay ka muuqataa had iyo jeer sida shacbigiisu raali uga yahay baa mas'uuliyadiisuna ka muuqataa waayo qofka madaxdii markuu mas'uuliyadiisa qabto si fiican
وهرجليه سيد اللي دوني شعبي ومدحده ويهنا ويكون فرحسين مركا هرتا تاعاد بانو فرحني قولوا بدنا وكسر دليل وشو وقدم بيسي دعدي شلي مانتا أو إن ديارات isagoo wafti ballaaran hogaaminaya uu flight kaga duulay xamar uu ku degay garoonkii Buuhoodle Ismaaciil Mire airport Buuhoodle oo ciidii casayde dahabka ahayd Buuhoodle iyo dadkiisii wanaagsanaa reer Buuhoodle ama gobolka Cayn oo faraxsan kaga hor yimaadeen iyagoo jaameynaya oo ciyaaraya oo heesaya oo gabyaya oo ku faraxsan horumarka iyo dadaalka madaxdooda ugu jirto annaguna sidaas oo kale dal kasta aanu joognay ummadda reer Khaatumo shanta qaaradood joogtaa sidaas unba iyaguna heegan u ahaayeenoo ula socdeen xaaladdu mid waliba meeshay marayso markuu halkaa ka degay isagii waftigiisii uu dadkii u qudbeeyey oo la joogay qadar saacada ama aan oran karo waa habeen la hoyday maantana uu u gudbay caasimadda ku meel gaarka ee taariikhiga ah ee Taleex halkaas oo isagana shacbigii reer Khaatumo ee agagaarka ka dhawaa ay laba casho heegan ugu ahayn madaxweynahoodii iyo waftidooda inay soo dhaweeyaan yidilada aan ka qabaa mid ka wanaagsan oo maanta moralkayaga iyo dadnimadayada iyo magacayaga iyo oo muuqday mid ka wanaagsan ima soo marin bariyaha kan halka ay joogto inay ka sii socoto mooyaane ilaahay waxaan ka rajaynayaa inayna hoos uga dhicin intaas baan su'aashii aad weydiisay kaga jawaabay waxa kale doonayaa inaan ku daro su'aasha aan daba raaciyo waxaan aad iyagana ugu faraxsanahay oo aan bogaadinayaa golaha deegaanka ee magaalada Buuhoodle nimankaas waxay nabseen wadaninimo niyad sami iyo shaqo wacan haddii ay tahay customka laga dhisay Buuhoodle Itoobiya isku xidhaya gobolada Khaatumo haddii ay tahay jidka dheer ee magaalada wadnaheeda ah ee la dhisayo haddii ay tahay airportka maanta diyaaradii ugu horeysay ka soo degtay isla 2 maalmood gudahood labada flight ku samaysay mid international ah iyo mid local ah haddii ay tahay xagga biyaha iyo biyo gelinta haddii ay tahay dadka reer Cayneed ama reer Buuhoodle yaaban kala reebine markaan reer Buuhoodle leeyahay laga soo bilaabo ilaa Qurmis iyo Heegaal iyo Marqaan iyo Xamar lagu xidh iyo inta deegaanka reer Khaatumo deegaan ay hawdi ku jirto dhan waxaadna tusteen wadaninimo Khaatumanimo reernimo geesinimo iyo dadaal horumarka aad samayseena xaq waxaad u leedihiin inaanu garab idinku siino naf iyo maal wixii aanu heli karaba aanu idinku siino idinku bogaadino waa intaasoo laga sii badiyo wixii aynu qabsanay iyo wanaagsanaa sidaynu maanta ugu aynay ee uga baxnay cadowga cadaadintiisii iyo cagajugleyntiisii waa intaasoo aynu kasii badino waan idin hambalyeynaya waana mahadsantihiin kinsi adoo mahadsan waxaan rabnaa su'aal kale inaan ka weydiino arrimaha Khaatumo waxaanu ognahay shirki Khaatumo tiri in qaabadiisii ay hadda gabagaba tahay iyo tinkiisina uu aad u dhow yahay waxa ka soo ka maray shir ay magaalada Boocame laga iclaamiyay oo isimada Khaatumo qaar kamid ah ay iclaamiyeen kuna shirsan yihiin sidee baad u aragtaa kinsi ahaan ama shacabka reer Khaatumo maxay shirkaas ka qabaan ama ka dareensan yihiin أبدأ سؤال runtii waa su'aal fiican in la isweydiiyana ku haboon waayo waqtigan xaadirka ah sidaynu ognahay reer Khaatumo waxay ku jiraan in shirweynihii saddexaad ee Khaatumo la qabto dawlad rasmi ah
ودستورkeeda leh oo baarlamaankeeda leh oo dhismaheeda lehna la sameeyo oo aadna aynu ugu baahanahay marka gabdhaha reer Khaatumo meelay joogaan waxaanu idin tusnay haddii aad isma tihiin haddii aad tihiin madaxweynayaal haddii aad tihiin wasiiro haddii aad tihiin qoladan kale ee guddiga fulinta ee jiitanka waxaanu anagu idin tusnay haddaanu gabdhanahay kalsooni aanu daacad u nahay dadkayaga dalkayaga idinkuna mas-uul noogu tihiin markaan usoo noqdo su-aashii isimada waxaa fiican annaga isimadayadu hadduu ugaas yahay hadduu boqor yahay hadduu suldaan yahay hadduu garaad yahay mas-uul bay naga yihiin weliba dumarka iyo caruurta reer Khaatumo mas-uuliyadooda waxa haya isimadooda halkii ay iyagu nagu furaan ayaanuna aalaynaa dadaal kastaanu samayno mas-uuliyad ballaaran oo maatada ka saaran oo dalka ka saaran ayaa jirta waana xaaraan isimada iyadoo anigu runtii isim wax lagama sheego oo waxaa loo doortay inuu dadkaa hogaamiyo marka anigoon u gafaynin isimadayada xurmo iyo sharaf ay iga mudan yihiin ma jecli isimadeena inuu tuhun galo waayo iyagu ma aha siyaasiyiin oo way ka xaaraansan yihiin inuu tuhun galo waa la isku dayayaa oo dadka hareeraha inaga xigaa isimkeenii bay hadda soo gaadheen baa dad leeyahay iska daa korneyladeenii janaanadeenii wasiiradeenii siyaasiyiinteenii macalimiinteenii hadda in la shakigii gaadho isimadayadii madax meel la taabto ka sarreysa ma jirto waxaan isimada ka baryaynaa oo ka codsanaynaa anoo ku hadlaya afka gabdhaha Khaatumo caruurta Khaatumo mustaqbalka caruurteeda gacantiinu ku jira waxaan idinka baryaynaa meel wanaagsan inaad nagu furtaan dacaynta iyo haddii 6 isim la helo Khaatumo waa la baabi'in karaa haddii 7 isim oo gaara oo magaalo Hiblaayo looga yeero Khaatumo waa la baabi'in karaa tuhunka anagu gabdhaanu nahay ma qaadi karo dhibtaas oo dhan tuhunka isimadayadu inay naga saaraan inay wixii ay qabaan shirweynaha intay la hortagaan uga sheegaan si daacad ah wixii dhib ay qabaan annaga mar walba xurmad baa naga mudan tihiin laakiin mas-uuliyadda idin saaran yaan shaki la gelin ninkii afxumaaday iyo ninkii idinku xurmad daraadana ilaahay baa madaxnimada idin gartay annaguna way ku ayidnay waana idinku caleema saaranay marka waxaan jecelahay sida aan idinku lisnay inaad noogu hambaysaan inaad noogu ilaalisaan dhibta caruurta iyo hooyooyinka iyo gabdhaha ayay ku dhacday wixii cadowina gaadhsiiyey inta badan waxay ku dhacday dumarka iyo caruurtana idinkaa dhalow ka mas-uula marka xaaraan weeye in isimadeena marba nooc looga sheekeeyo waxaan idinka codsanayaa inaad naga tirtirtaan waxa boogaha nalagu sameeyey hadday run tahay hadday been tahay midna anigu hadda ma xaqiijin karo laakiin idinkaan idinka sugaynaa sidii aan nooga tirtiri lahaydeen waxa aan ka qabo shirka cadow waa sidaa waana fiican tahay maanta inaan shirkii weynaayo la sugayo haddana shir kale ismadu waxay heli karaan in shirka oo la isugu yimi intay xidhaan 3 maalmood iyagu taleex shirkooda ku dhamaystaan markaana shacbigooda u furaan aniga saasay ugu qurux badan tahay fikradan ka qabaana waxa weeye ismadu anaga isimanooyin cid kale ma caleema saaran ninkii isku dayaana ma iibsan karo wax la iibsan karo maaha iyagana waxaan ka doonaynaa xaqiijinta iyo tuhunka inay naga saaraan waad mahadsan tahay.